Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. Kusoo dhowaada barnaamijkeenii sheeko xiisa badan xogayaal u noqo. Barnaamijkeena waxaynu kusoo qaadan doonaa qiso jacayl isla markaasina dhex martay laba qof oo dhalinyaro. Labada qof ee dhalinyarada ah ee qisadu ay ku saabsan tahay ayaa waxaa la kala odhan jiray Cabdiraxmaan iyo Hani. isla markaasina Cabdiraxmaan waxa uu ahaa nin ku nool dalka Jarmalka, isla markaana waxa uu ahaa arday wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka Jarmalka. waxa uuna markaasi ku noolaa magaalada Berlin ee caasimadda dalkaasi. kadib waxa uu maalinkii dambe u soo duulay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, isla markaasina waxa uu ku soo degay halkaasi. waxa uuna joogay muddo aad u kooban. kadib markii dambe ayaa Cabdiraxmaan waxa uu bilaabay in uu markaasi ku dalxiiso magaalada, isla markaasina uu tago hudheelada ugu casrisan ee sida weyn u qalabaysan ee ku yaala magaalada caasimadda ee Hargeysa. kadib waa kastaaba waayihiisa ayuu wataaye. Cabdiraxmaan waxaa si toosa ula falgalay fallaadhaha caashaqa ee fariimaha u dira aadmiga, isaga oo markaasi intii uu hoteelkaasi joogay ku bartay mid ka mid a dumarka ugu quruxda badan magaalada Hargeysa. isla markaasina waxa uu bilaabay in uu markaasi la sheekaysto oo markaasi ay dhex marto xidhiidh markaasi wada sheekaysiya. Cabdiraxmaan ayaa markii dambe waxa uu bilaabay in uu markaasi inantani ay isbarteen uu ka qorto nambarkeeda, isla markaasina uu bilaabo in ay wada sheekaystaan oo markaasi ay dhex marto sheeko markaasi ku dhisan is-aaminaad iyo weliba kalgacayl walaaltinimo. kadib sidaasi markii uu xaal ahaa, inantani ayaa markii dambe waxa ay si toosa ay u jeclaatay wiilkan, isla markaasina waxa ay bilowday in ay u soo bandhigato xidhiidhkeeda. balse Cabdiraxmaan laftiisa sidoo kale waxaa si toosa qalbigiisu uu halacsanayay, isla markaasina wuu jeclaa inuu laftiisu xidhiidh jacayl uu la wadaago inantani Hani la yidhaahdo. kadib labadii qofba iyaga oo markaasi si aada isku jecel ayaa oo markaasi laakiin midiba aanu ka kale aanu usoo bandhigin xidhiidhkooda, ayaa maalinkii dambe ayaa Cabdiraxmaan ayaa inta uu markaasi uu go-aansaday in uu inantani uu soo bandhigto xidhiidhkiisa, ayaa waxa uu ka codsaday in isla markaasina uu bilaabay in uu u sheegto dareenkiisa jacayl ee markaasi uu qaaday. jacaylkanigu tunte muddo baan la tahay, marna baan ii turay xantaaqiyo turunturiyo tuqaantuquygu haya, xantaaqiyo turunturiyo tuqaantuquygu haya. muddadu iga toosiya tirig buu ii shida, toosh buu igu kahaya intaa weygaa tusa, toosh buu igu kahayaayo intaa weygaa tusaadiga. muddadu iga toosiya tirig buu ii shida, toosh buu igu kahaya intaa weygaa tusa, toosh buu igu kahayaayo intaa weygaa tusaadiga. dhiiga ku tallaalanto qalbiga kama tiri kare, ilaa baata ajiro qofka daran toosiye jacaylka tudubaha u qabo. inantii ayaa iyaduna markaasi aqbashay, isla markaasina labada lamaaneba maalinkaasi waxay u ahayd waqti aada u farxad leh, isla markaasina noqon kara xusuus qor. kadib toddobaado markii la wada socday, isla markaasina ay labada qofba ay muujiyeen dareen kalgacal iyo weliba is-aaminaad markaasi ku dhisan axdi la wada galay, kaasi oo markaasi dhidibada ay u taageen
sidii ay markaasi jacaylkooda ay uga madho dhalin lahaayeen isla markaasina mustaqbalkooda ay uga gaadhi lahaayeen guul ayaa markaasi waxa ay bilaabeen in uu qofba uu ka kala aamino isla markaasina ay iska ilaaliyaan wax kasta oo markaasi khalkhal ku keeni kara xidhiidhka ay markaasi bilaabeen isla markaasina ay rabaan in ay dhidibada u taagaan sidii ay marka dambe ay mustaqbalka u noqon lahaayeen laba qof oo markaasi hoy ama rug wada degaa laba loo wada socdaa لكيجي بيرك اللحوة كالكحيلك أذا كلغو كلها سيمايه 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 لما دودكي لقيد عشقها إلا الله ويسو أحواليتا إلا الله ويسو أحواليتا لما دودكي لقيد عشقها إلا الله ويسو أحواليتا إلا الله ويسو أحواليتا ليلي قيس ورتي عن ترعب كيلايه لعودك علمي لقي أنا يقول لغن أنا يقول لغن ليلي قيس ورتي عن ترعب كيلايه لعودك علمي لقي أنا يقول لغن أنا يقول لغن balse intaasi kadib maxaa dhacay la soco qaybta labaad ee qisada si aad markaasi ula socoto saar like ama subscribe inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa aniga oo Maxamed Turki oo idinkaga tagaya sidaasi iyo nabadgelyo